waxaan ku wareejinaya wasiirka arrimaha gudaha. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Odayaasha uqaasha waxgaradka dhalinyarada dhammaanba dadkiina sharafta leh ee reer Xudun yar iyo weynba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxa ilaahay mahadiya magaaladan Xudun runtii magaalo qadiima oo ilaa ingiriiskii jirtay degmooyinkii hore dawladdii hore Soomaaliya u ahayd hormoodka ka ahayd dhismayaasha runtii halin ka soo jeedo oo aan filayay inaan gobolada ma ka dhisnayna kaas waa ingiriiska Soomaaliya baa muujinaya taariikhda muxuu ahay gabowday muxuu ahay degmadan sida ay sheegteen nabaddu waa asaaska nolosha haddii aan nabadi meel aan dawladi ka jirin nabadi kama jirto reer Xudun waxaan idinkula dardaarmaya dawladnimada ha ka gaabinina oo ha isgeejinina waxaad tihiin magaalooyinkii u horreeyey nabadda qaatay ee ciidanka qaranka si wanaagsan u soo dhoweeyey ee aan dhibaata ka dhicinba u horreyseen gobolkan Sool inta xagga soo xigta gobonimada intaa lagu walaydin haya waxaad samoodaa weli inaydaan la qabsan dawladnimadii haddaad sheeganaysaan waxa idinka dhiman haddaad madaxdiina u soo sheeganaysaan hadday kuwa qaranka ciidanka qaranka iyo kuwa kale maamulkaba yihiinna wax idinka xumaadeen ma jirin waxa hal laba gardaaqa taqaanada hash laba gardaaqa taqaana afshaarada ugu dhaadhici maayo inta weyn ma fahmayse dhexda waraaba ku cunaabaa leeyahay hadda laba meelood milicdaan waxba kale jiraan tii kale dalkii alahayna waa kan Somaliland weeye 1884 baa laynoo sameeyay xuduud maanta aynu leenahay wax kale oo dhibaatooyin ma jiraan maanta waxaanu idin wadnaa horumarkii oo bilow ah kan maanta waynu bilaabaynaa horumarintiisana waynu bixinaynaa deegaankaana dhisaya ragiina wax dhisaya tii degmada ee muxuu ahaayay maamulkana waa la dhisaya baabuurkaas isagoo weli la sameeynin ciidankii booliiska ahaa ayaanu keennay oo maanta la sameeynayo booliiska aynu sameeynayno waxaynu ku qaramaynaa wixii ka soo halay dawladii hore halka joogay ee booliis ahaa wixii ka soo halana imikaynu unkaynaa oo dadka deegaanka abaynu ka unkaynaa waxa laydinka doonayaa booliiska laydin unkaa waa booliiska nabadiina ka shaqeynaya waa booliiska dambiilaha idinka qabanaya waa booliiska wax dilay idinka qabanaya waxa loo baahan yahay la shaqeysaan haddaydan la shaqeyn dhibaato badan baa imanaysa nabadgelyada sugu mayso iyagana waxaan doonayaa si wanaagsan oo shaqeysaan soo dhaweysaan u hoggaansanaataan waxa ka mid yihiin degmooyinkii ingiriisku berigii u jiray marka loo yeeriyo dhinka dambiilaha caaqilka loo soo dhiibi jiray bahal jiliilad la yiraahdo birtaasay soo raaci jireen imikana askarta iska geejinaysan iyo qofkii la idin soo diray sidii birta loo aamini jiray ila askariga u aamintaan baynu doonaynaa waa askariga waa inankiinii waa ilaaliyihiinii nabadiina iyo muxuu ahaay noloshiina ayuu xataa inuu naftiisa u huro ayaa loo tababaraya oo uu amar ku qaba oo intaan adiga lagu dilin isagu ku hor dhintaaba ayay tahay shaqadiisu ninka caynkaasa ina soo dhaweysataan mooyaane ina maanta booliis la'aantaan ma ahayn hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa gaadiidkana waa kan booliiska taliyihiisii imika la magacaabaya ciidankii hore u sii joogay wixii shaqayn karaya imika la qaramaynaya wixii kale ka dhimanna idinka deegaanka laga qoraya si cadaalada oo siman oo idinka laftiisaadaan isdulmin oo qolo wali cid waliba ay ka muuqataa la idinku qoraya aad iyo aad baa mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka madaxtooyada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah dhammaan bulshada halka isugu timi iyo inta magaalada joogta iyo intii soo dhaweysay aad bay mahadsan yihiin wasiirka iyo taliyaha dhameeyay halka wixii laga oran lahaa waxaan maanta socodkaygu ahaa wixii horumarin aanu ka qaban karno degmada aanu ka qabanno degmada deemuda la joogayo maamulkii iyo waa ka dhisan yihiin waa doorasha yani laga sameeyo xubno waxa jooga dowladda hoose
maamul baa jooga meeyar baa jooga marka maanta dhamaystirka shaqadooda iyo wixii ka dhiman buuxinteedaan u nimi waxaan u nimi inaan wixii aad dawladnimada ka tabaysaan dhamaystira insha Allah ta'ala hadday tahay dhismo iyo hadday tahay ciidan iyo hadday tahay waxa weeye waxtar intaba haddii alla ka dhigo wixii dawladnimada aad maanta ka tabaysaan inaanu dhamaystiraan u nimi haddii alla ka dhigo waa dhamaystirana insha Allah ta'ala waa ka wada shaqaynaynaa idinkana dacalkiina nala qabta annana waan u soo diyaar garownay oo waxa u aragtaan in aanan u kala harin ciidan qaran iyo mid asluubeed iyo mid booliis iyo wasiirkii dakhiliga iyo madaxtooyadii iyo dhammaantii waxaan u maraynaa sidii wixii dawladnimada idinka dhiman loo dhamaystiri lahaa ha yeeshee caafimaadkuna yar buu yimaada cudurkana wuu soo boodaa alcafiitu tajiiq alqalb marba waxbaa la bilaabaa maanta insha Allah ta'ala wixii suurtagala aan ka bilaabi karaan ka bilaabayna insha Allah ta'ala nala dhiso nala gacanta nala qabta ayadna maatinta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan idinka maqnayn way ka maqay madaxweynuhu baa ka maqan Soomaaliland hadday janaanadii tahay hadday wasiiradii tahay hadday hay'adihii kala dawladda ay tahay cid ka maqan ma jirto waxaa noo muuqata halkaa rabitaan la rabo nugaal waxaan horta codsanayaa inay sida inoo rabaan oo inoo ka muuqata inana aynu u shaqayno talabaad halkan waxaa weeye xaruntii degmada ee maamulka xaruntii maamulka ee degmada guri baa ka dambeeya uu dhiisigu lahaa tanna waa xafiisyadii wixii wax qabado oo aad noo wadaan waxaad noogu qabanaysaan si aanu cashuur guranno dhaqaale badan idinka dooni mayno haddaad bilaysna noo samaysaan xafiisyadana noo samaysaan waddooyinkayaga iyo jideedkayaga annagaa la soo baxay annagaa u kabanayna waxaannu codsanaynaa inaad isugu kala fadhiistaan xafiisyada iyo amniga oo keliya number one wixii kale waa faafakaysi waxaan ku soo dhaweynayaa cali wasiir cali bismillahi raxmaani raxiim marka hore aad baan uga mahad celinayaa xukuumadda oo hadda ka hor aniga xuseen noo soo dirtay halkan oo madaxweynuhu yidhi soo eega oo aanu riboodkeedii geynay haddii si degdega markiiba looga soo jawaabay wasiirkii arrimaha gudaha shaqada ku lahaa wasiirkii madaxtooyada iyo qoladeeda markii hore intiiba saaka hadday idinla diyaar yihiin waxqabad maayar gaarigii waa lagu wareejey haddaad wax qabanayso dawladdii hoose waatana waa lagu dayactirayaa wasiirkan u dhiibi doonaa garoonkii ciyaaraha ee isaguna aan dhagax dhignay isagana wasiirkeedu waa socdaa isna haddaynu tegi doonaa isna waa la dhisayaa marka waxaan ku wareejinaya wasiirka arrimaha gudaha bismillaahi araxmaan araxiim runtii xudun waxay nasiib u yeelatay in muxuu ahaayey dhismayaashan cusub ee maanta laga bilaabayo xudun inay noqoto degmooyinka u horeeya waynu aragnaayo guryo qurux badan bay lahayd oo fiican oo aad u tiro badan maanta waxaa laydiin ballanqaadaynaa inaannu guryaha fayskoodii hore sidii markii horeba loogu soo diray wasiirrada annana inaannu ka daba nimid si muxuu ahaayey fayskii hore lacagtiisii loo bixiyo oo maanta la bixiyo taasuna waxay u tahay tusaale sida ay dawladda uga go'an tahay iyo madaxweynaha qarankaba in degmadatan la horumariyo wax allo wixii maamule ka dhimanna loo dhammaystiro maamul la'aantiina wax allo wax soconaya ma jiraan waxaa la bilaabi doonaa sidaa maayirku sheegay guddoomiyuhu sheegay muxuu ahay canshuurtii waxaa la bilaabi doonaa dakhligii magaaladu way isbedeli doontaa nolol bay yeelan doontaa dhammaan inaha kale iminka maanta aanu wadnana waynu mari doonnaa wixii kale aynu ku daraynayna haddii la yidhaahdo gadaal baynu ka keeni doonnaa oo dib baynu ka keeni doonnaa aad iyo aad baan degmada iyo guddoomiyaha iyo muxuu ahay madaxda iyo odayaashaba aanu ugu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum